iyaga kuwa markaa waxa weeyaan xeerarkan dejiyey ee ummadda waxa weeye damcay inay kitaabka alle kaga jeediyaan iyaga oo markaa og nima wadaada ah iyo kuwa aqoon-yahana sheeganaya oo aan kollay arkayay iyaga oo hadlaya oo xeerkan la weydiinayo oo ay leeyihiin xeerkani waxa waafaqsan yahay kitaabka alle xeerkan mala may akhrin waxa kaloo isleeyahay mala diinta ilaahay baan wax baran ka garanayn faman yakfur bidaaquut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الله وحده سبحانه وتعالى قفك الداقود كقالوبه داقود وانك ددك له خير كنا خير نو نقونيا oo aan ku dhaqmayna war kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaata oo waxaan faraa kala baxa kuwa u doodaya ee waxa weeyaan wanaajinaya ee tacdiiminayana waxaan leenahay war diin Ilaahay ma waafaqsanee ha ku dambaabina Ilaahay u toobad keena subhanahu wa ta'ala kuwa marka waxa weeyaan ku dagaalamaya ee maanta doonaya inay markaa dhiigga dadka ku daadiyaanna waxaan leenahay war waxaan wax dhiig muslim lagu daadiyo maahe kitaabkan ama sabuugan xeer ciise la yidhaahdo waxyaabaha aan ka soo saaray waxa dhowr iyo 10 bay gaarayaan laba qaybood buu ka kooban yahay sidaan arkay waxa weeye waa management ama markaa waxa weeye waa maamul sida markaa ceel laga cabo oo kale iyo bimacnaa waxa weeyaan iyo wixii la mid ah dhulka sida loo ilaashanayo oo kale iyo waxyaabahaas waxyaabo iska maamula waxna waxa weeyaan waa xukum bin aadan lagu dajinayo oo lagu kala saarayo marka waxyaabaha ay xukunka ka dhigteen ee kitaabka ama buugan ay ku qoreen ee ay doonayaan ummadda inay ku kala saaraan kulligood jumlatan wa tafsiilan waxay khilaafsan tahay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay khilaafsan tahay waxana waajiba dadkii waxan qoray iyo wixii markaa badiyay iyo wixii markaa waxa weeyaan doonaya inay markaa waxa weey meel gaarsiiyaan in Ilaahay ku toobad keeno subhanahu wa ta'ala qodobka koobaad waa habka dhaarta ay u dhaaranayaan habka dhaarta ay u dhaaranayaan waxay leeyihiin habka dhaartu waxa weeyaan marka yaani waxa weey qoladii ku sheeganayso xeerkani wuxuu dhigayaa sidan kow reerka dhaaranaya gagi bannaan oo aan geed lahayn baa loo soo tusmaynaya bay dhahay waxaa la dhisayaa halkaa waxaa laga dhisayaa 40 aqal ayaa lagu furayaa 40 naagood waa say qorayaan 40 naagood oo wiilal sita ayaa la geynaya 40 hablood oo uguba ayaa iyaga la keenaya 40 gabdho 40 wiil oo garmadooba baa la keenaya 40 wiil oo dhalinyaro baa la keenaya kadib inta marka waxa weeyaan la isku habeeyay halka la keeno ayaa waxa bilaabmaysa dhaartu maxay tahay marka ay dhaaranayaan dhaartu waxa weeyaan waxay ku dhaaranayaan dad iyo duunyo waa tii Ilaahay qoob dameeraad noogu miisa inaanan qabin dhiiga nalaga doonayo dhaartu saasi noqonaysa bidix arintaasi ma dhaarba walaalayaal shariicada islaamka waxa weeyaan ka soo dhex saaray waxa lagu dhaqmayo waxna waa wax ku cad weeyaan waxna waa istinbaad oo laga soo dhex saaray dhaartu waxa ay ku guntantaa waxa weeyaan sida la inoo sheegay kutubta inoogu qoran wallaahi billaahi tallaahi bimacnaa daatada ilaahay in lagu dhaarto ama ilaahay sifaadkiisa lagu dhaarto sida waa rabbul caalamiin oo kale taasay dhaartu noqonaysa ومع ذلك يا النبي صلى الله عليه وسلم وحو شيغ حديث صحيحه عمر بن الخطاب ايو اركي اسغو مالين مالما النبي صلى الله عليه وسلم ku dhaaranayo عمر با ku dhaaranayay aabihi buu ku dhaaranayay markaas النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت qofka dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarto ama waxa weey ha iska aamuso sida darteed ayaa waxa la yiraahdaa dhaartu kuma guntanto yani بغير إلهي سبحانه وتعالى وحنا هين إن لقول دارته داتديسا أما صفات كيسا أو لقول دارته مويانه وحكرك ما قلته هذا النبي كود دارته يهداد ولي كود دارته يهداد حديقة كود دارته يهداد نور كود دارته يهداد حيوان كود دارته مد نبى كود قلته ميسو هل كوحة إنه قعد إن وحويان أي خلاف سنته هاي أما أو خلاف سنة حركني يعني قابك دارته مسلمين تو أي ليهين إسلام رهانتان أيجو سماستين دار أي ليهين مر هدي أي دار أي ليهين سماستين وحوي دارتا أي سماستين ودار ملقية كتابك إلهي يسنين محمد صلى الله عليه وسلم كوري بنيسا أن الله نبهين عدي مركا وحوي كل دارتانا أنا دارتا سنكون تمينين كوي وحن تشيء أمك أمدا كودانا إلهي نتوبت كنوية أرنت الله بعد
كسر دحساري وحنا دحلك دحلك سوى حوي واحد لو يدينا يا سويدينا هبلوه دحلك وحمكوليهن waxay oranayaan xeer ciise ma ogin meel laga qadinayo hablaha waxa weeyaan dhaxalka mar kale ayaa la weydiinayaa oo waxay oranayaan waxa weeyaan inamada ay walaala yihiin ayaa wax siinaya ay oranayaan ma dhaxalkii la yaqinay iyaga wax siinaya bay leeyihiin cilo kale ayay sheegeen oo waxay leeyihiin sababta loogu diidayo habluhu inay dhaxal qaataan waxa weeye hablahan marka la guursado xoolahan reero kale ayay la qabanayaan xoolaha kan reero kale ayay la qabanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ayaa waxa weeye jideeyey dhaxalka isagaa jideeyey suuratu nisaa in badan oo ka mida ilaahay aakhirkeeda iyo awalkeedaba isagaa ku soo dejiyey rabbi wuxu uhi subxaanahu wa tacaala yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mislu xadi alunsayeyn alla subxaanahu wa tacaala wuxuu idin dardaarmayaa yacni ubadkiinna labku wuxuu leeyahay laba dhadig nasiibkood buu leeyahay markaa wey ilaahay baa subxaana wa tacala arrintaa sheegay ilaahay ayaa arrintaa inoo sheegay cidda markaa hablaha dhaxalka ka qadisa oo tidhaaha waxa weeye habluhu dhaxal ma leh waxa ay qaateen xoolaha ay qaateen ay hablaha ka qaateen waxa weeyaan waa xoolo agoomeed oo waxa weeyaan naar bay ku gelayaan oo naar bay cunayaan haddii aanay ka toobadkeenin waxooda u celinin wamaca daalika ayaa waxa ay galeen dembi kabiire abay galeen oo aad iyo aad markaa u weyn waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan dhaxalka uu u jideeyey marka yani waxa weeye qaraabada qaar ka mida ay dhintaan ciddii dhaxalkaa loo jideeyey rag iyo dumarba inay waxooda helaan qodobka saddexaad ee ay waxa weeye ku khilaafeen shareecada islaamka waxaa ka mid ah waa kufsiga weeyaan kufsiga qaybay u kala yeeleen oo iyagu baarcad iyo gambacad iyo waxbay markaa sameeyeen xeer ciise kufsiga wuxuu u sameeyey qaybo kala jaajaad ah kufsigu sidiisaba waxa weeyaan waa qoftii dumar ahayd oo la boobo haddii waxa weye qoftan dumara ee la kufsaday kufsigeedu uu yahay in la hadiday ama hub markaa lagu kaxaystay ama qasab lagaga dhigay kufsigaasi wuxuu noqonaya xiraabuu noqonaya xiraabadaasi waa maxay waa dadkii qudaacu duruq ahoo kale ama waddada istaagay oo kale ayuu markaa la mid yahay ciddii caynkaa samaysay shareecadu waxay qabtaa in badanoo ka midi in waxa weeye lasoo qabto waxa weeye la dilo suuqa lagu waro ayay markaa noqonaysaa sidaasay culimmada qaarkood leeyihiin qaarna waxay leeyihin maya ee waxa weeye kufsigaasi wuxuu noqonayaa sidii markaa waxa weye xaddi zina oo kale ayay qaadanaysaayo haddii ninkan wax kufsaday uu yahay nin dhallinyaro ana waxa weeyaan waxaa laga jarayaa 100 jeedal sanadna waa la mastaafurinaya hadduu yahay nin guur xalaala soo marayna waxa weeyaan waa la rajiminaya culimmadu waxay soo qaataan gabadhan waxa weeyaan iktisaabka lagu sameeyey amase waxa weeye la qasbay iyadu dembi ma laha laakiin waxay yeelanaysaan tacwiid maaliya in la siiyo waxa weeyaan adduun maal bay yeelanaysaa oo maalkaasi waa maxay waxa weeye mar haddii gabadhan waxa weye la qasbay oo la kufsaday hadday inan tahay horta marka hore waxay yeelanaysaa wax loo yaqaano mahrulmisli mahrulmisligu waxa weeyaan wixii lagu meheriyey walaalaheed iyo eedooyinkeed iyo wixii la mida wixii lagu meheriyey ayay leedahay oo galmadaa loo galmooday waxay kaloo sheegeen hadday inan ahaydo bikrigeedii la jabiyeyna bikrigeeda waa 5 halaad waxay kaloo sheegeen waxa weeyaan kufsiga wixii ka soo gaareen nabarrana way leedahay walaakiin qolada tan waxa weeye xeerka qortay iyagoo xeerka waxay leeyihiin haddii inan la kufsado inantaasoo aan qaangaadh ahayn ninkaa kufsaday waxaa lagu xukumayaa 16 halaad baa lagu xukumayaa wamaca daalika ninkaasna inan dambe oo loo guurinayo oo degaanka ahi ma jirayso weeyaan haddaag shareecadii marka way khilaafeen iyagaa markaa wax samaystay am lahum shurakaa'u sharacuu maa lam ya'dan bihi illaah ma waxay samaysteen shurako yacni waxa weeyaan uu jidaysay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan aanu jidaynin sidaasay markaa waxa weeyaan isu khilaafsan yihiin inan hadday gabadhu carma lahayd la kufsaday ama ay nin lahayd gabadha la kufsaday gabadhaasi waxa ay leedahay mehru muslima iyada yeelanaysaa waxay kaloo yeelanaysaa waxa wixii nabar soo gaadhay ayay yeelanaysaa dembina ma laha markaa iyadu ninkaa kufsaday hadduu inan yahay aan guur soo marinna 100 jeedal iyo mastaafuris weeyaan hadduu nin guur soo maran yahayna waa in rajmi
la rajmiyo oo la dilo markaa dhagax lagu dilo ayuu noqonayaa ama waxaa leeyahay qodobka afraad ee xeer ciise uu ku khilaafay shareecada islaamka waxa weeyaan waa waxaan loo yaqaano jaraaxaadka wixii qofka soo gaadha maalan waxay leeyihiin labada gacmood oo kale magtooda waxa weeyaan midigta iyo bidixdaa faa'iido badan bay leeyihiin oo wax badan lagu qaataa sidaa darteed haddii ninka bidixda laga jaro waa 16 bay leeyihiin haddii midigta laga jarana waxay leeyihiin waxa weeyaan waa 15 faraha gacmuhu waxay leeyihiin xubin kastaaba waxa weeye waa hal marka far kasta waa 3 halaad 5 farood waa 15 halaad bay leeyihiin marka ilkaha qaar waxay leeyihiin waa 3 halaad qaarna waxay leeyihiin waa 5 halaad qaarna waxay leeyihiin waa 2 halaad dumarka ilkahooda iyo ragga ilkahooda xagga marka waxa weeyaan magta way kala duwan arrintaasi waxay khilaafsan tahay shareecada rabbi bay khilaafsan tahay ilaahay shareecadiisu waxay jidaysay gacanta qofka haddii la gooyo muslimka ah oo halkaa kafka laga gooyo ama midig ha noqoto ama bidix ha noqotee waa 50 halaad weeyaan labada gacmood haddii laga gooyana oo halkaa kafka laga gooyo waxay noqonayaan 100 halaad haddii halkaa laga jaro waxa weeyaan dhudhunka halkaa waxa weeyaan suxulka ama laga jaro halkaa waxa weeyaan kilkilada mid walba waxay leedahay wax loo yaqaano xukuumo faraha gacmaha oo kale far waliba waxay noqonaysaa waa 10 halaad xubinti kasta waxay noqonaysaa 10 halaad oo 3 loo qaybiyay bay noqonaysaa 3.33 meelahaasay noqonaysaa waa hagaag ilkuhu ilig waliba waxa weeye waa 5 halaad weeyaan faraha markii ay qiimeynayeen waxay yidhaahdeen faraha gacmaha waxa ugu fiican ama se ugu wanaagsan faryarada bay yidhaahdeen marka faryarada way qaaligareeyeen waxay yidhaahdeen waa 4 halaad bay yidhahdeen marka faraha gacmuhuna dhammaantood suulka iyo 4ta kale mid waliba waa 10 halaad markaa weeye waa 50 halaad baa markaa waxa weeye halkaa ku dhan taasna waxa weeye xeer ciise shareecada rabbi ayuu ku khilaafay dadkii qorayna ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa iyo shareecadiisaba waa ay khilaafeen arrintaas shanaad ee xeer ciise uu khilaafay ee shareecada allah uu ku khilaafay xeer ciise wuxuu leeyahay ninkaa u taga habaryartii hooyadiina uleeya bari bay dhacday bay yidhaaheen ninkaa xukunkiisu wuxuu noqonayaa ilkaha saraa laga saaraya waa la xoolaynaya xoolaa laga dhigaya mar labaadkana waa la dhufaanaya mar saddexaadka faraha gacmaha mid walba 3 ayaa waxa weeye laga jaraya mar afraadkana calaamad ayaa waxa weeye lagu sameynaya labada dhinac ee dhabanada ayaa lagaga sameynaya waa arrin aad iyo aad u culus runtii weeyaan shareecadu waxa ay baabaysay cuquubatu man sanaa biixdaa maxaarimihi cuquubada lagu samaynayo qofka ka sinaysta mid ka mid ah maxaarimtiisa dumarka aanu geyin hablihiisa walaaladii kuwa adeerka u yahay kuwa abtiga u yahay hooyadii habaryarihii eedooyinkii maxaa laga yeelayaa muslimiintu waxay ku kulmeen qofka ka sinaysta bidaati maxaarimihi mid ka mida maxaarimtiisa wax ka mid a fa calayhi xad baa laga oogayaa laakiin waxay isku khilaafeen sifada xadka 2 qowl bay isugu khilaafeen qowlka hore wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay xaddu zinaa buu la mid yahay lana kala saari maayo maxaarim iyo maxaarim la'aan la kala saari maayo waana madhabka uu qabo abu xaniifa iyo maalig iyo shaafici imaamu axmed riwaayaadkiisa mid ka mida weeyaan qowlka labaad waxa weeyaan xadduhu xaddu lqatli weeye bikulli xaal qofka noocaa ku dhaca xadkiisu waa xad dil awaa la dilaya waana madhabka imaamu axmed iyo isxaaq ibnu raahowey iyo jamaaca min ahli xadiis ay qabaan weeyaan arrinta shanaad ee xeer ciise uu ku khilaafay shareecada rabbi waxa weeyaan xagga magta weeyaan waxay leeyihin haddii nin la dilo 100 halaad buu leeyahy waa sax weeye walaakiin 100kaa halaad waxay leeyihiin 62 waxa iskale qaraabadaa iskale 62 qaraabadaa iska lehoo waa dadkii magta ka bixinaya bay yidhaahdeenoo kuwaasaa qaadanaya qofka 38 iyo waxbaa u soo horaya waxay kala sameeyeen arrin bidco ah oo aad foolxuno waxay leeyihiin qofka qabrigiisa inta la tago ayaa waxaa lagu qalayaa awr baa lagu qalayaa
ayay idhaahdeen marka waxa weeye labada arrimood ee ay khilaafeen ee ay shareecada ku khilaafeen waxa weeye kow mid waxa weeyaan qubuurtan la tegayo oo meydkii dushiisa lagu qalayo neef arrintii jaahiliyada ay samayn jireen bay ahaydoo wakhtigii jaahiliyada ninku hadduu waxa weye nin raganimo badan ahaa oo marka uu dhinto ama waxa weeye miisaad waxyaaba uu la gaari ay jireen jaahiliyadii intay tagaan qabrigiisa ayay waxa weeyaan neef bay ku boqmogoyn jireen oo ku qali jireen markii islaamku nabigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa waa diiday waxaana u daliila can anas ibni maalik radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam laa caqra fi lislaam nebigu wuxuu ihi boqmogooye ma jirto bimacnaa wax lagu qalayaa ma jirto islaamka dhexdiisa yani waxa qabriga korkiisa xadiiskan faa'iidada ku jirta waxa weeyaan cadamu jawaasi dabxi cinda alqabri inaanay bannaanayn in qabriga agtiisa markaa wax lagu qalo ma bannaano weeyaan halkaas waxa weeyaan way ku khilaafeen shareecada ilahi subxaana wa tacaala arrintan labaadna waxa weeyaan magtan qofka dee marka la dilo magtiisa odayaal loo diro wixii kharasha dee waa laga jari karaa wixii xoolahaas soo hadha waxa ay noqonayaan yani waxa dhaxal buu noqonayaa dhaxalkaana aabbe iyo hooyo iyo sawjad iyo ubad ayaa soo gelaya ilaahay subxaana wa tacaala arrinkaa isaga ah aad baa ilaahay uga goodiyey ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii buduunihim naara wasayaslawna saciira alle wuxu uhi kuwii cunayey xoolaha agoonta cunayey oo dulmi ku cunaya waa saasoo kale weeyaan inamaa in kale maahe yaakuluuna waxay cunayaan fii buduunihim caloolahooda naaran naar bay gelinayaan oo cunayaan wasayaslawna saciira naar saciir ana waxa weeya way ku guban doonaanoo way geli doonaan taasna waxa weeyaan xagga magta waa ay ku khilaafeen shareecada islaamka xeer ciise dadka ku dhaqmaya xeerkan iyo dadka waxa weye xeerkan u xukun doonanaya maxay noqonayaan xeerkan ka fog shareecada islaamka ama ha la yidhaha gendi ha lagu sheego ama guddi ha lagu sheego cidda u fadhiisata ee dadka tidhahda waan ku xukumaynaa sida kitaab furka oo kale odhanaysa marba qodob baan diin baaraynaa oo odhanaysa waxa weeye hebel qodobkaasaa haya wuxuna ay aaraada ay yihiin haddii ay arrinkaas xalaashadeen oo ay yidhahdeen sidaasaa waxa weye arrintaasi ay ku xalaal tahay xeerarkanna kitaabka ilaahay bay la mid yihiin sidaan ummad badan ka maqlayno waxa shaki la'aana inay waxa weye diinta ilaahay kaga baxayaan iyaga kuwa markaa waxa weeyaan xeerarkan dejiyey ee ummadda waxa weeye damcay inay kitaabka alle kaga jeediyaan iyaga oo markaa og oo mukhtaarinahoo doortay haddii ay sidaa markaa waxa weeyaan arrinkaa ay sameeyaan waxa ay iyaguna noqonayaan booskii rabbi lahaabay isdhigeen cibaadadii rabbina iyaga ayaa markaa waxa weeye iska dhigay inay mutaystaan ummaddiina waxa ay ka dhigteen kuwo iyaga markaa caabuda ayay markaa ka dhigteen sidaa darteed ayaa waxa waajiba ciddii arrimahaasi ay soo gaadhaan inay ilahay uga toobad keento culimmadu waxay dhahan man adaaca alculamaaءa wاlumaraa fii taxriimi ma axala allah aw taxliilu maa xarama allah faqad ittakhaduu arbaaban min duuni illaah qofka culimmada iyo umarada ku adeeca inay iska xaaraan yeelaan wax ilaahay yani waxa way u xalaaleeyey ama ay u xalaaleeyaan wax ilaahay xaaraantinimeeyey faqad ittakhaduu arbaaban min duuni illaah yani kuwaasi kuwaa waxay ka dhigteen rabbiyaal ilaahay subxaanahu wa tacaala sokadii rabbiyaal bay ka dhigteen arrinta kale ee marka waxa weeyaan aan u gudbayaa waxa weeye niman wadaadda ah iyo kuwo aqoon-yahana sheeganaya oo aan kollay arkayay iyaga oo hadlaya oo xeerkan la weydiinayo oo ay leeyihiin xeerkani waxa waafaqsan yahay kitaabka alle runtii waxaan isleeyahay anigoo aan ku xadgudbaynin malaa may akhrin xeerkan malaa may akhrin waxaan kaloo isleeyahay malaa diinta ilahay baana wax baran ka garanayn waxay sameeyeen talbiis bay ummadda ku samaynayaan ilahayna subxaanaه wa tacala wuxuu walaa talbisu alxaqa bilbaadil wa taktumu alxaqa wa antum taclamuun isagoo ilaahay yuhuuddii iyo nasaaradii la hadlaya hadalka iyaga lagula hadlaya innagana waa inugu dhacayaaye walaa talbisu alxaqa bilbaadil war xaqa ha ku dheehina baadil oo ha isku dhex darina wa taktumu alxaqa oo xaqa ah markaa qarisaan wa antum taclamuun idinkoo markaa arrinkaa garanaya waxaan intaa uga sii gudbayaa
dadka shucuubta muslimiinta ah ee xeerkan samaysatay haddii ay jahli kaga sugnaayeen marka ay soo gaadho xujadu ee ay fahmaan ee ay la yidhaahdo war waxani waxa weeyaan waa wax diinta ilaahay ka hor imanaya inay qaataan waa waajib haddii ay markaa qaadan waayaan waxay noqonaysaa waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayattabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawallaa wa nuslihi jahannam wasaa'ad masiira yacni aayaddaasaa markaa qabsanaysa xeerkan waxa uu ka mid yahay xeerarka soomaalidu ay dejisatay oo ka hor imanaya runtii shareecada rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuuna lagu macneeyaa wax kasta oo qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ka duwa oo la raaco ama la adeeco inuu daaquud yahay alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unsila ilayka wamaa unsila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila adaaquud waqad umiruu an yakfuruu bihi wayuriidu ashaydaanu an yudilahum dalaalan baciida waidaa qiila lahum tacaaluu ilaa maa ansala allahu waila alrasuul wara'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda dadka le xeerkana xeer noo noqonaya oo aanu ku dhaqmaynaa war kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala qaata oo waxaan faraha kala baxa kuwa u doodaya ee waxa weeyaan wanaajinaya ee tacdiiminayana waxaan leenahay war diin ilaahay ma waafaqsanee ha ku dambaabina ilaahay u toobad keena subxaanahu wa tacaala kuwa markaa waxa weeyaan ku dagaalamaya ee maanta doonaya inay markaa dhiigga dadka ku daadiyaanna waxaan leenahay war waxani wax dhiig muslim lagu daadiya maahee dunuubta dembigiisa iyo sharkiisa waxa kan ha layska ilaaliyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha loo noqdo rabbina subxaanahu wa tacaala ha loo toobad keeno haddii lagu madax adaygo oo la yidhaha maya kanaanu wadanaynaa oo kanaanu ku dhaqmaynaa runtii arrin khatara baa ku sugan faman yakfur biddaaquud wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwusqa